madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada iyo gurmadka abaaraha Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa safar gaaban ku tagay magaalada Buulobarde ee gobolka Hiiraan. Ujeedka socdaalka ergiga ay u helayaan xubno ka socday hay'adaha cunnada adduunka ee WFP iyo sidoo kale UNHCR ayaa qootama u guurgelida xaaladaha abaaraha iyo nolosha danyarta ee abaartu saameysay, isagoo kormeeray qaybaha kala duwan ee kaamamka barakacayaasha ay ku sugan yihiin dadkaasi. Qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanada ay ka soo barakaceen. weyn oo xoogan hayso dhulka roob noogu diin abaar weyn aan hayso waa iska baahanahay in si fiican gacanaha noola qabtaan rabna oo noola gargaaro ilma agoomanahan haysta oo 7 canug ah xoolo yar ay joogo kisriye waa iga dhamaadeen kisiro saca ay kisriye ay joogo abaar ay disho waa iga banahan haysta oo 7 canug ah xoolo yar ay joogo kisriye waa iga dhamaadeen kisiro saca ay kisriye ay joogo abaar ay disho waa iga baan ergiga gaarka ee abaaraha gurmadka ee Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay dhaqaaqyada Al-Shabaab inay cunaqabataynta ka qaadaan magaalada wadooyinka ay u furaan si gargaarka bini'aadantinimada loo soo geliyo. walaalayaalow magaaladan 9 sanaad ku haysan cunaqabatayn dadkeedii qaxootiye wada noqdeen magaaladan waa ku dhashay waa ku koray magaalo qurxan dad nadiif ah ay joogaan hanti haystay ahayd magaalada hadda waxay u taalaa si waxay u taalaa aad u dhibaataysan aad u duruufaysan dadka dhan ay qaxooti noqdeen waxaasna waa mas'uuliyadiina diinna waa sheeganaysaan islaamnimo waa sheeganaysaan dadkiina waxa u diideen naftiya u diideen noloshiya u diideen ma u qalanta magaaladan saa inay ahaato dadkeedana saa inay noolaadaan mas'uuliyadaas idinka iskale islaamnimo ma aha diin ma aha akhlaaq ma aha damiir ma aha Soomaalnimo ma aha intaba waxa isku fal ayaa leenahay dadka ka qaada cunaqabataynta ka qaada xaasidnimada Soomaalidana qaasatan dadka siyaasiyiinta ah ee ku mashquulsan siyaasadda iyo manaasibta iyo kuraasta ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda soo fiiriyaan oo ay gurmadaan oo ay walaalahood